odayaashan iyo waxgaradkan oo uu wehelinayo xogayaha warshadaha iyo ganacsiga ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCUD ayaa cabasho ka muujiyay xukun ay sheegeen inay maxkamadda gobolka Togdheer ay ka soo saartay dhul ay sheegeen inay leeyihiin oo loo xukumay qof kale waxayna baaq u direen odayaashani gudoomiyaha maxkamadda sare iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan ahay nin dulmana amaanahay haddaan ahay Cabdulqaadir Cismaan Xuseen meel aan lahaa 13 sanadood ayaa maxaan ku raacday oo seesan oo 3 wajahadood leh oo waraaqdii aan ku iibsaday nootay sharciga ahayd ee aan kala qornay taa ay tahay iyo 3 milkiiladood oo ay leedahay kiiga iibshay iyo ku ka sii iibsaday iyo taydii 3 milkiiladoodba halkaas ay ku dhanyihiin iyo waraaqdii nootay ahayd sharciga ahayd waxaan loo garnaqayaa oo la tartansiin jiray oo maxaan ku raahday 5 sanadood yaani maxaan ku raahday li cadibaay oo maalkaygii iyo naftaydii waxaygiiba lagu lumiyay nin aan mulkeedaba aan u lahayn oo meel la mulkeedahayga aan kaga oolin oo daris aanan ka ahayn oo maxaan ku raahday meeshaba aan joogin markii anigu aan iibsanayay geeygiiba aan joogin waa ninka leeyahay Xuseen Axmed Rooble Xuseen Kiniyaati asha dhaweyd baa aniga waxa la keenay leeyahay maxkamadda laga doonayaa kaalay waan imi waxa lagu fulinta saxiix baa lagu yiri waxaan digniin fulineed isii oo aan ka soo jawaabo inta kaga soo jawaabo laguma siinaya baa leeyahay waxaan riwaayay mulkiyada ka horeysay taasaan saa u hayaa moogta aan leeyahay wartaata ka horeysay ee ninkaas meesha uu ku leeyahay ee hadaanaba ku reeyahay maanta lagu siinaayo itusoo kaliya ma waxa lagu $4,000 kharasha iyo hadaalaba ku roon yahay meeshii aad saxeexdo wax ka dhaxeeya ma jiraan geedada mulkiyada ka horeysa ee ninka wax lagu siinaayo halay sheega baan idhiyo yaani hal ituso kelmad kale lama waxa la xidha waa la xidhay dhul seesan oo mulkiyad leh oo mid labaad leh oo mid saddexaad leh oo dawladdu cashuurto sanadkii walba yaani fuulay madax baan haybuu yiri wuxuu ku fuulay ma garanayno aniga madaxa hool la iga haybaysanaya weeye oo shaarka dawladda aan kaaga qaado sidaas waxba ma dhaqdo dulmi bay dhashaa arintaasi waxay keenaysaa cawaaqib xumo iyo fool xumo aan hore loo arag waxaan oran lahaa oo ku boorin lahaa xukuumadda Muuse Biixi garwadeenka ka yahay arintaa hoos loo eego waaxda garsoorka waxaan kula talinayaa war ummadda dhexbaa u tihiin cadaaladii baa tihiin waaxdii cadaaladda hoosu eega ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.